السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ka hadli doonaa sida qofka abuuraya mashruuc ganacsi uu u heli lahaa maalgelin. Maalgelinta waa ereyga sabab u noqonaya in uu rumoobo riyadaada ganacsi. Dadka horumarka ka gaaray ganacsiga waxay sheegaan in qofka dhalinyarada ah ee ku guuleysta inuu mashruuciisa ganacsi u helo maalgelin ee u gudba marxaladda aasaasidda mashruuca ganacsi wuxuu ka gudbay marxaladda ugu adag ee mashruuca. waxaa jira wadooyin aad u badan ee lagu maalgeliyo mashaariicda ganacsi. muuqaalkan waxaan ku soo bandhigaynaa 5 wado ugu muhiimsan. ugu horeyn, in aad adiga ismaalgeliso. inaad mashruucaaga ku maalgeliso keedka aad adiga leedahay ama qaar ka mid ah qarashka aad ka qaado qoyskaaga haddii ay ku qancaan mashruucaaga. badanaa mashaariicda fulay ayaa ugu horeyn ka bilaabatay keedka shakhsiga ama qayb laga qaaday qoyska. Number 2, inay ku maalgeliyaan ganacsadayaal. waa dad haya lacag aad u badan balse raadinaya dhalinyaro haysta hal abuuro ganacsi si ay u maalgeliyaan saamina ugu yeeshaan mashruuca. Number 3, in aad maalgelin ka hesho dowladda. dowladaha qaar ayaa dhalinyarada haya hal abuurada ganacsi oo bulshada wax u taraya u sameeya maalgelin iyagoo eegaya qorshaha mashruuca. Number 4, shirkadaha gaarka loo leeyahay. qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ayaa sameeya sanduuq maalgelin oo ay uga talagaleen inay ku maalgeliyaan dhalinyarada haya mashruuc ganacsi si ay uga helaan saami. badanaa shirkadahaas ayaa maalgeliya mashaariicda khuseeya shaqada ay hayaan. Number 5, in aad deyn ku maalgeliso mashruucaaga oo aad ka deynsato bangi. tallaabadan ayaa ah xalka ugu dambeeya oo la qaato uguna dhibka badan kuwa aan kor ku soo xusnay. sidaad ogtihiin, deynta ma ahan mid sahlan. xitaa qofka mar waliba maskaxdiisa waxay ka fakaraysaa deynta halka ay ka fakiri lahayd horumarka mashruuca. xusuusnow, maalgelinta waa tallaabo aad u muhiimsan. inaad ku gudubtana waa guul. waa in aad ka fakirtaa sida wadooyinkan mid ka mid ah aad ugu maalgelin lahayd mashruucaaga. wadooyinka badanaa waxa ay leeyihiin faa'iido iyo khataro. dooro midka ugu faa'iidada badan uguna khatarta yar. waad mahadsantihiin.